Your Excellency, President Uhuru and First Lady, Your Excellencies, Presidents, Head of States and Governments, mudane madaxweyne Uhuru Kenyatta iyo marwada koobaad haybadlayaasha boqortooyooyinka madaxda dalalka iyo dawladaha martida sharafta leh mudanayaal iyo marwooyin waxaa sharaf weyn ah inaan idinkaga qudbeeyo munaasabadan muhiimka ah ee 25 guurada shirka caalamiga ah ee dadweynaha iyo horumarka oo ka dhacaya Nairobi waad ku mahadsan tahay madaxweyne Uhuru soo dhaweyntaada diiran iyo martisoorkaaga aad u samaysay aniga iyo wafdiga ila socda for your warm reception and hospitality, according to me and my delegation. waxaan garowsanahay isla markaana dhammaan qabanqaabiyaasha uga mahad celinayaa dadaalkooda iyo sida ay ugu guuleysteen inay dhammaanteen nagu kulmiyaan ka qaybgalka shirkan qiimaha leh si loo qiimeeyo halka aan maanta taagannahay iyo halka aan u baahannahay inaan gaarno si aan u xaqiijino ballamihii aan galnay ee ku aadanaa sare u qaadidda xuquuqda badqabka iyo horumarka gabdhaheena iyo haweenkeena qiimaha badan. I'm absolutely convinced that girls and women must be supported to play waxaan si buuxda ugu qanacsanahay inay waajib tahay in la taageero gabdhaha iyo haweenka si ay door buuxda uga qaataan horumarka bulshadooda ugana dhigaan kuwa dhab ahaan horu socod ah barwaaqaysan oo waara. gabdhaha iyo haweenku waa saaxiibo qoys iyo muwaadiniin qof kasta oo aadana ah ka faa'iido waxqabadkooda sidaas awgeed in la garab siiyo iyada oo loo marayo sare u qaadidda adeegyada dadweynaha sinaanta cadaaladda iyo in la kordhiyo ka qaybgalkooda bulsho iyo doorka siyaasad dejinta waa arrin dawladayda ka go'an. maanta oo caalamku si xawliya u magaaloobayo oo ay jiraan sinaan la'aan baahsan oo dhanka bulshada iyo dhaqaalaha ah sida adeegyada dadweynaha waxaa aasaasi ah inaan aqoonsanno inaanan kow joogin balse dariiq dheerina sugayo si aan u hirgelinno barnaamijka ICPD ee looga gol leeyahay in dhammaan dadweynaha si siman loogu faa'iideeyo. caalamkan isku xirmay cidna cidla kagama tegi karno waa inaan aqbalnaa inay jiraan caqabado aan wadaagno oo ku aadan hirgelinta kobaca dhaqaale oo loo siman yahay bixinta adeegyo dadweyne oo la heli karo iyo fursad u abuuridda dhalinyarada adduunka kuwaasi oo badankood ku nool qaaraddan Afrika. sidaas awgeed waxaa lagama maarmaan ah inaan si wada jir uga shaqeyno sidii aan u heli lahayn xalal wadaag ah aas-aasi ahaan iskaashiga iyo qaybsiga culaysku waa dariiqyada kaliya ee aan ku gaari karno horumarka waara ee aan higsanayno sanadda 2030. Somalia has a young but growing population. Soomaaliya waxa ay leedahay dadweyne da'yar oo koror ku socdo isla markaana magaalooyinka xoog u soo galaya marka la tix raacayo qiyaasta tirakoobkii dadweyne ee sanadii 2014 laga sameeyay Soomaaliya dadweynaheenu ku dhawaad waa uu 3 jibaarmay muddo 20 sano gudaheed ah oo ah intii u dhaxaysay 1975 ilaa 2014. tan waxaa ku biiraya ilaa 2 milyan oo qurba joog ah oo caalamka ku firarsan. markasta xisaabta waxaan ku darnaa qurba joogta Soomaaliyeed maxaa yeelay waxa ay door weyn ka qaateen taageerada qoysaskooda bulshadooda iyo dalkooda markii ay jireen caqabadihii ugu adkaa ilaa haddana door weyn ayay ka ciyaaraan geediga aan ugu jirno gaaritaanka horumarka waara. brings opportunities and challenges for Somalia and 70% of our population kororka dadweyne ee Soomaaliya waxa uu wataa fursadihiisa iyo caqabadihiisa maadaama 70% dadweynuhu uu ahaan ka yar yahay 30. waxaa Soomaaliya ka jirta caqabad dhab ah oo la xiriirta bixinta fursadaha iyo adeegyada dadweyne sidaas oo ay tahay waxaan garowsanahay baahida loo qabo in si degdeg ah loo taageero dhalinyaradeenna si kororka dadweyne aan uga faa'iideysano dhanka xasiloonida iyo abuuridda fursado loo siman yahay. sidaas si la mid ah dawladdeenu waxa ay si aan kala joogsi lahayn uga shaqaynaysaa sidii loo xaqiijin lahaa dib u habeynta dhanka dhaqaalaha
si aan u kordhinno ka faa'iidaysiga khayraadka gudaha una kobcinno dhaqaalaha inta uu socdo dadaalka aan ku doonayno deyn cafiska si ay noogu suurto gasho helitaanka maalgelinta hay-adaha caalamiga ah ee maaliyadda taasi oo keenaysa in aan dardar gelinno maalgashiga adeegyada dadweyne gaar ahaan waxbarashada xirfadaha caafimaadka iyo kaabayaasha dhaqaalaha oo baahi degdeg ah loo qabo maternal mortality rate across the country by no less than 25% by 2030. dowladda Soomaaliya waxaa si dhab ah uga go'an inay hoos u dhigto xaddiga guud ee umuraaca dalka in aan ka yareyno 25 boqolkiiba sanadda 2030 iyada oo loo marayo tababaridda iyo shaqaalaysiinta umuliso oo dheeraad ah tirada heerkeedu sareeyo ee dhimashada hooyooyinka Soomaaliya waa mid murugo leh oo raataban ku reebta hooyooyinka iyo qoysaska dowladdeenu waxa ay si adag uga hawlgashay inay xalka dhibaatadan ku darto qorshaha horumarinta qaranka waxaana naga go'an inaan qorshaha si raacno annaga oo taageero ka helayna saaxiibadeena qaaliga ah waxaan si buuxda u aqoonsanahay in helitaanka hooyo caafimaad qabta gabar waxbaratay iyo adeegyo caafimaad oo baahidooda ka jawaabaya ay ka dhigan tahay bulsho wanaagsan oo barwaaqaysan xadgudubka jinsiga ku salaysan Soomaaliya waa ka dambi si ka duwan sawirka laga haysto haweenka Soomaaliyeed waa kuwa si dhab ah loo jecel yahay loo ixtiraamo loona qadariyo iyada oo loo arko udubdhexaadka ilbaxnimadeena iyo jiritaankeenna waa lafdhabarta bulshadeena iyo jiritaankeenna dadnimo xadgudubka ka dhanka ah gabdhaheenna iyo haweenkeennu waa sharci darro iyo foolxumo aan dowladdeenu si naba ugu dulqaadanaynin sidaasi oo ay tahay waxaan garowsanahay in shuruucda oo kaliya aanay markasta ku filnayn wax ka qabashada arrintan sidaasi awgeed dowladdeenu waxa ay shuraako kala duwan kala shaqaynaysaa hirgelinta waxbarasho iyo tababaro ku saabsan dembinimada iyo waxyeelada bulsho ee xadgudubka jinsiga ku salaysan taasi oo looga gol leeyahay in dhammaan dadku fahmaan inta aan ku hawlanahay dhammaan dadaalada aan ugu jirno sidii aan mustaqbal wanaagsan ugu abuuri lahayn gabdhaheenna iyo haweenkeenna waa inay naga go'an tahay inaan xoojinno iskaashiyadeenna si aan ugu gurmano arrimaha horumarineed ee ahmiyadda inoo leh innaga oo u marayna isweydaarsiga aqoonta isdhaafsiga khibradda iyo kaalmaynta dhanka dhaqaale ee dalalkeenna oo kale ah kuwaasi oo ku hawlan geediga dib u soo kabashada dhaqaale oo ah arrin caqabadeeda wadata balse miro dhal leh gabagabadii Soomaaliya waxay sii wadi doontaa inay si joogto ah uga shaqeyso in caafimaadka iyo badqabka gabdhaheeda iyo haweenkeeda mudnaan gaar ah lagu siiyo geediga horumarka qaran gabdhaha iyo haweenka Soomaaliyeed waa ku dhawaad kala bar bulshada mana jiro qaran guuleysan kara iyada oo kala bar muwaadiniintiisii ugu wax soo saarka badnaa la hagraday laga gaabiyey ama la takooray sidaasi darteed taageerada gabdhaheenna iyo haweenkeenu waaba qorshaha horumarinta Soomaaliya waana mid wanaagsan mahadsanidin dhammaantiin